odayaasha hore ay uga hadleen anigu qodob ka duwan baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa Muuse hay dambeeye dalka nin baa ka taliya dalka nin baa karaamadiisii la saaray dalka nin baa lagu doortay si dimuqraadiya waa Xaaji Axmed wuxuu ugu talagalay Somaliland inaan xaajiga 8 jirka aan waxba aanay ka dambeyn sidoo wuxuu wado waa koow Axmed markuu qasriga madaxtooyada galay talaabooyinkii uu qaaday ugu horeeyay waxay ahayd doorashadii golaha deegaanka waa tiin ogeynoo dhiig baa ku daatay waxa ku xigay maanta haamaa la cunay dekad baa la iibiyay musuqmaasuq baa jira way dhaaftay waa aramtara way soo dhaaftay war tugrigu nageeyay uu naga soo celiyay uu laantii geeyay uu naga soo celiyay oo micna allaaliya micna maanta aynu kaga hadlano Somaliland ay marayso aynaan garaneyn waxaan leeyahay xaajigida hadii ay maqaadir ku dhacday maqaadirtu ceeb ma leh laakiin odaygu ha soo baxo ummadii waa sugaysaa ummadii laantii un bay imika ku dhagantay wax kale oo haray ma jirto qodobkaas waa qodobka talabaad waa Muuse Biixi waxaan xasuustaa 12 sanadood qaaxo cid aanu dib u geysani ma jirto hebel lama oranayo cid aanu maanta dib u geysani taariikhdu way isqoraysaa waa 25 kan ilaanta deganeen Muuse wan iskarana Cabdiraxmaan Tuur buu kala baxay ina cigaal buur albaabka rasaas kala dhacay daahir riyaalaynu ogeyn kan imika soo cumaamaday siiraayeen ogeyn dhibta ku hayay walkii cali gurey walka toori kaga hayay ma umadu way kortay Muuse dalkan madaxweyne ka noqonaya waa sheeroon madaxweynaha ka noqdo ma ka dagayso umada Muuse 8 mooye dhulcaaga hubsan anu leeyahay assalaamu calaykum